soo dhawaad saaxiibayaal madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa soo jeediyay qorshe cusub oo diblomaasiyadeed kaas oo la xiriira barnaamijka nukliyeerka Iran. Ruushka ayaa waxa uu doonayaa in uu la wareego ama lagu wareejiyo kaydka uraniumta ay bacrimisay Iran, isagoo ula gol leh sida uu sheegay in la yareeyo xiisadda colaadeed ee caalamiga ah iyo dagaalka ka socda bariga dhexe, loona sahlo heshiis is-afgarad ah oo ay gaaraan reer galbeedka iyo Iran. Haddaba qorshahan uu soo jeediyay Vladimir Putin, Iran ma ogolaanaysaa? Mareykanka muxuu ka yiri? Qorshaha ugu dambeeya ee Putin uu ka damacsan yahay arrintaana maxay tahay? Warbixintan ayaan ku falaqeyn doonaa. Hindisahan ayaa la sheegay inuu ka dhashay wadahadal diblomaasiyadeed oo dhexmaray Moscow iyo Washington, gaar ahaan wadahadal la sheegay inuu dhexmaray Putin iyo Trump. Qorshahan ayaa isla markiiba noqday mid si weyn loogu falanqeeyo siyaasadda caalamiga ah maadaama uu taabanayo arrimo xasaasi ah oo la xidhiidha hubka nukliyeerka iyo amniga gobolka. Sida ay sheegeen ilo diblomaasiyadeed, qorshaha Putin wuxuu ku salaysan yahay in Iran ay wareejiso kaydka uraniumta ee sida heerka sare loo bacrimiyay, kadibna Ruushka uu qaado oo uu ku kaydiyo gudaha dalkiisa ama u bedelo shidaal nukliyeer oo loo isticmaalo ujeedooyin rayd ah. Ujeedada ugu weyn ee hindisahan ayaa ah in la yareeyo cabsi laga qabo in Iran ay u isticmaasho uraniumta la kobciyay samaynta hub nukliyeer ah. Sidoo kale Moscow waxay aaminsan tahay in tallaabadan ay noqon karto tallaabo muhiim ah oo lagu abuurayo kalsooni siyaasadeed, taas oo sahli karta wadahadal nabadeed oo ballaaran. Khilaafka ku saabsan barnaamijka nukliyeerka Iran ayaa muddo dheer ahaa mid ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ee xiisadda ka dhex taagan Tehran iyo reer galbeedka, gaar ahaan Mareykanka iyo Israa'iil. Warar ka imaanaya Washington ayaa tilmaamaya in maamulka Mareykanka uusan si buuxda u aqbalin hindisaha Putin. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegaya in weli ay jiraan su'aalo ku saabsan sida loo hubin karo in uraniumta si ammaan ah loo maamulo iyo in Iran aysan mustaqbalka dib u bilaabi karin kobcinta heerka sare ee uraniumta. Sidoo kale Mareykanka wuxuu ka walaacsan yahay in Ruushka uu ka faa'iideysto arrintan si uu u kordhiyo saameynta uu ku leeyahay arrimaha bariga dhexe, gaar ahaan xilli ay jirto tartan geopolitik ah oo u dhexeeya Moscow iyo Washington. Trump ayaa la sheegay in si taxadar leh ugu falceliyay qorshahan, isagoo sheegay in arrimaha la xiriira nukliyeerka Iran ay u baahan yihiin heshiis ballaaran oo ay ku jiraan damaanad qaad adag oo caalami ah. Dhanka Iran, dowladda Tehran ayaa muddo dheer ku adkeysanaysay in barnaamijkeeda nukliyeerka uu yahay mid loogu talagalay ujeedooyin nabadeed sida soo saarista koronto iyo cilmi baaris saynis ah. Mas'uuliyiinta Iran ayaa hore u sheegay in dalka uu xaq u leeyahay inuu kobciyo uraniumta iyada oo la raacayo heshiisyada caalamiga ah ee nukliyeerka. Si kastaba, dalal badan oo reer galbeedka ah ayaa ka cabsi qaba in barnaamijkaasi uu u horseedi karo horumarinta hubka nukliyeerka. Hindisaha Putin wuxuu muujinayaa isku day cusub oo uu Ruushku ku doonayo inuu ka ciyaaro door muhiim ah oo ku saabsan xalinta khilaafaadka caalamiga ah. Moscow waxay hore u muujisay inay doonayso inay noqoto dhexdhexaadiye muhiim ah oo ku lug leh arrimaha bariga dhexe. Falanqeeyaasha siyaasadda ayaa sheegaya in haddii qorshahan la aqbalo uu noqon karo mid wax badan ka bedela qaabka ay awoodaha waaweyn u maareeyaan khilaafka nukliyeerka. Si kastaba, waxaa sidoo kale jira shaki badan oo ku saabsan sida ay suurtagal u noqon karto in dhammaan dhinacyadu ay ku heshiiyaan qorshe sidan xasaasi u ah. Khilaafka ku saabsan barnaamijka nukliyeerka Iran ayaa weli ah mid ka mid ah arrimaha ugu adag ee siyaasadda caalamiga ah. Hindisaha Ruushka ayaa laga yaabaa inuu noqdo bilow cusub oo wadahadal diblomaasiyadeed, balse weli waxaa jira caqabado badan oo u baahan in la xaqiijiyo oo la xalliyo. Khubarada amniga caalamiga ah ayaa aaminsan in xal waara uu u baahnaan doono heshiis ballaaran oo ay ku lug leeyihiin quwadaha waaweyn iyo hay-adaha caalamiga ah si loo hubiyo in khatarta nukliyeerka si dhab ah loo xakameeyo. Inkasta oo qorshaha Putin uu weli ku jiro marxalad fikir ah, haddana wuxuu mar kale muujiyay sida ay arrimaha nukliyeerka Iran u sii ahaanayaan mid saameyn weyn ku leh siyaasadda iyo amniga caalamka.